السلام الله عليكم ميل كastoo dunida ka joogtaan magacaygu waa Idris Xasan Maxamed page-ka daawanaysan waa Idris Xasan page official muuqaalka maanta waxaan ku xusi doonaa qiso aad u xanuun badan oo ku dhacday hooyo Soomaaliyeed oo runtii ila wadaagtay jeclaatayna in bal qisadan ku dhacday maadaama page-kayga ay dhowr jeer soo booqatay ayna ku aragtay qisooyin runtii iyada dareen ahaan taabtay kadib hooyada qisadii ay iga sheekaysay qisadii marka ay iga sheekaysay runtii hooyadii aad baan uga murugooday qisada ay iga sheekaysay oo aad u xanuun badneed kadib maamadii waxaan weydiistay bal in aan muuqaal ka diyaarin karo qisadan ay iga soo wadaagtay runtii maamadii way ii ogolaatay inaan muuqaal ka diyaariyo qisadu marka haddii aan is iraahdo hal maalin dhamaystir ama turjum waxay qaadanaysaa ama dee ka sheekay aan idhaahdo waxay qaadanaysaa dee adigu waqti badan bay qaadanaysaa markaa si aan u soo koobo qisadaas waan uga dhigo 3 xalqadood oo ay dadkuna fahmi karayaan dareenka iyo waxa macagaranaysa qisadan ay ku socoto marka maanta waxaan idinla wadaagi doonaa bismillaahi kariim qisada qaybteeda koobaad oo ku soo qaadan doono meesha ay sheekadu ka bilaabanayso muuqaalka saddexaadna wuxuu noqon doonaa meesha uu ku dhamaan doonto qisadan fadlan mid ay ku dhacday ama mid ka duwan fadlan waad igu soo qor kartaa qaybta message-ka haddii aad jeceshahay in qisadaada la wadaago bulshada ama dadku ay wax ku qaataan sheekadu waxay ku bilaabaysaa sida tan hooyadan iyo aabbahan runtii waa dad wada jooga oo ku nool hal guri iyada iyo 3 ciyaal ay dhaleen labadooduba runtii waxaa soo kala dhex gala mashaakilaad aanay dhammaanayn ama dhibaato markastaba uu ninku ku hayo gabadha maadaama ayna raggu isku mid ahayn oo ay kala duwan yihiin raggu waayo faraheenaba ilaahay nasiib gabadhii dhibaato badan kadib gabadhii oo ay ka wajahday ninkan kasidarantii ciyaalka dhexdooda mar ay isku dagaalaan ilmaha ka ugu yar ooyo ka ugu weyn uu xanaaqo ka sii yar uu magaranaysa isagoo warkamayo uu yaryahay ayaa waxay hooyadii bal ku tashatay ninkan iyo isagu in ay kala tagaan gemi ahaantoodba oo ay sidaa ku kala tagaan kadib uu xanaaqay oo waxa uu ku dhahay kuma furayo kadib waxa ku dhahday maya inaad furtid baan rabaa kadib wuu fikiray waxauna ku dhahay waan ku furayaa laakiin ilmahan ma arki doontaa ama indhada ma kama qaadi doontid oo aniga ayaan wadanayaa runtii ninkii wuxuu ugu hanjabay maadaama ay furniin ka dalbatay inuu ciyaalka gebi ahaantoodba wada qaato 3 ciyaala inuu qaato runtii hooyadii way xanaaqday maadaama ciyaalkan ay rafaad badan uur badan ay dhibaato badan la soo siricday 3 wiil way xanaaqday kadib waxay ku dhahday ma yeelayo mana qaadanaysid ciyaalkayga kadib ayay hooyadii marka uu ninkii hadalkii dayn waayo yiri waa sida kadib hooyadii bal waxay dhahday dib u fikrad ayaa ku soo dhacday fikradaas oo ah bal in ay dib u tashato ay dib iskugu noqoto dib iskugu noqotay kadib waxay isdhaxday ciyaalka iska sii oo waxaad siisaa ninkan maadaama uu sidaa yahay oo aad dhibaatadan isku qabtaan ciyaalkiina dee magaranaysa uu kugu xujeeyey si ay dhibaatadan u soo afjarmato ciyaalka iska sii runtii ciyaalkii way siisay oo warqadeedii ayay ka qaadatay marka ay warqadeedii ka qaadatay iyadoo taa markii fikirkoogii hore kusoo darsatay ama dib u noqoshadii in ay la hadli doonto faamilka ama ay faamil ku dhex geli doonaan si ay ugu soo celiyo ay tolkunka dhex galaan ugu soo celiyo ciyaalkeygii laga qaatay runtii arrinkii hal mar ayuu iska bedelay sidii ay maleysanaysay oo waxa ay noqotay wax ka duwan sidii ay maleysanaysay runtii 3 ciyaal ah ninkii wuu ka kaxaystay oo sida aan muuqaalka yare kartoonka uga sameeyay ay uga kaxaystay faamilkii ayay la hadashay waxayna ku dhahday waxaan rabaa ninkii uu furay ciyaalkiina uu iga kaxaystay ee waxaan rabaa torow inaad ciyaalkii anigu kama maarmo hooyanahay hooyana ubadkeyga looma dhaamo inaad ciyaalkii ii soo celisaa waxay la hadleen ninkiina wuxuu dhahay waxaan ku heshinaa annakii gabadhan haddii aan kala tagnoynayna ciyaalka indhada ma ka qaadin tolkiina wuu ka diiday wax war ah ama wax arrina sidaa ayayna gabadhii cidlo ku joogtaa oo hadda
ay faamilkayga kaga maqan yihiin ama saddexdeedii cubadka ahaa ay dhashay oo had iyo habeen ay soo kulkuulin jirtay. Tani waxay ka dhacday aadka u xanuunka badan maaha Soomaaliya ee waxay ka dhacday qurbaha ee maaha Soomaaliya. Muuqaalkan wuxuu noqon doonaa mid aan qaybtiisa kale aan ku soo qaadan doono waddanka uu ka dhacday qisadani iyo meesha ay ciyaalkii ku dambeeyeen, maadaama hooyada aananu magaceega soo magacaabi karin. iyada ayaana aanu u bandhignay in aananu soo qaadin doonin magaceega. qisadana inta ayaan ku soo meeri doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.